ير أو لو ده ناس وين هدي لو ده محكادي بيسا أخيارك Somali One Family Channel waxaa idan leeyahay isu soo noqod wanaagsan waa walaalkeen Cabdikariin oo idan leh isu soo noqod wanaagsan mar labaad iyo mar saddexaad maanta waxaa idin wadaa oo ama ka hadli rabaa video aniga yaab igu soo dilay oo ah DJ Subeer iyo Fartuun Birima dagaal xalay dhaxmaray halka iyo Denmark sida ogsoontihiin ba maalmahan waxaa soo jiray ama soo socday qabanqaabo ama ahayd uu qabsanayay ninkii la dhihi jiray alfanaan Nimcaan Hilaac maadaama uu meelo badan ku soo qabsaday showgiisii si sharaf leh ay ugu soo dhamaatay xalay si sharaf leh ma dhicin oo waxa sharafti ka qaaday laba qofood oo walaalo ah misna Soomaali isla si ah oo ah DJ Subeer iyo Fartuun Birima DJ Subeer iyo Fartuun Birima marka idan leeyahay ma ahan inaan labadoodaba aan aniga si gaar ahaaneed u raadsanayo laakiin wixii ay na tuseen ficilkoodii ayaan uga falcelinaynaa ama videoga nagu dhaliyay inaan idin soo gudbino waxayna ku dhacday inay Fartuun Birima ka codsatay DJ Subeer inuu hees u saaro waan ogtahay Soomaalida maalmahan playback fanaaniinta dhan playback qaadaan laakiin markii masrax la isugu imaado qaarkood ma qaadaan oo heesta dadka inay la jiibiyaan ay jecel yihiin sida uu sameeyo Diamond Platinums oo kaleeto laakiin xalayta maxaa dhacday DJ Subeer markii la dhahay heestii isaar DJ Subeer oo ogtihiin ninka ugu kibir badan DJ-yada waaye inkastoo hadda ka hor sheegay inuu ka baxay DJ-nimada haddana ma aqaano kaleeto xalaytu wuxuu sii sameeyay ceebti adduunka wuxuu ku sameeyayna waxay ahayd gabar masaakiina walaashiisa uu ka tabar badan yahay ama ka awood badan yahay ayuu waxyeelo u geystay inkastoo ayadaba afka ay ka caykantay laakiin af iyo gacan isku mid maaha marka DJ Subeer waa ogtihiin fanaaniin badan isla ma hadlaan waxay isku dagaaleen waxyaabahaas ayaa ka mid ah waxaana jirto DJ Subeer inuu yahay ninka ugu kibir badan meesha maadaama ay tiri isaar uu diiday gabadhii waxay tiri naasaweyne markay tiri saaxiibka waa xanaaqay waa soo orodiyay maxamed cali kalaay alaabtiisii oo kale u bilaabay ilaahu naxariiste feeru soo tuuray gabadhii markay ku dhacday af isma amaanin waxaa arki doontaan ayay isdhaafsadeen markii ay isdhaafsadeen ayaa waxaa dhacday marka in laysku buuqo qayladii waxay gaartay in booliis la keeno booliiskii markii la keenay waxaa la yiri sidee noqotaba Fartuun Birima waa inay showga ka baxdo showga sidee dabcan uga baxaysaa marka ninkan ayadaa soo dhaweysay ayadaa meesha maxaa la dhahay asaga ku casuumay adiga khalad markii la yiri yaa fudud oo bixi kara in waxay noqotay ayadii baxdo markii ayadii la bixin damcayna way diiday waxay tiri ma baxaayo aniga waxa ii maleysaan tiri fanaanad hadda soo baxday ma fanaanad playback ka heesta ii maleysaan tiri dabcan Nimcaan Hilaac iyo Fartuun Birima fanka aad ay uga soo horeysay zaaid waliba ninkan waa nin daayar oo hadda soo baxay ayadana waxay noqotay fanki soo curtamay ee hadda maamooyinka taagan marka waxaan leeyahay DJ Subeer ama uu sheegaya fanaaniintan ayaga kuma baahna ee adiga ayaa ayaga u baahan waayo markii uu sharfo oo lagu dhaho noo imo wax nootun ila sharafti iyo karaamada iska qaadid maaha ina maxaa la dhahay dadkii ku dhalay ama kula dhashay ama laga yaabo xataa inaad wax isu noqotaan inkastoo Soomaaliya oo dhan ay walaal yihiin ama muslimnimo walaalaha ku noqdaan ama qaraabo kale walaalaha ku noqdaan in ay wax isku tihiin waa laga yaabaa laakiin ma ahayn inaad fududaato oo aad sameyso khaladaadka noocaas oo kala ah
waxaan ku leeyahay DJ Subeer hadda islama hadashaan Iskolaji ninkaas bisa tusaale ahaan usoo qaadanaya waxaana ugu soo qaadanaya tusaale ahaan waxay tahay ninkaas maxaa la dhahay Iskolaji dad afkiisa ma gaaro waa ogtahay laakiin qof walbo horta inaa kibirtid maaha wax walbo tahay haddaa fanaan tahay inaa kibirtid maaha haddii aad madax tahay inaa kibirtid maaha haddaa DJ tahay inaa kibirtid maaha war qof walbo adigaa faanis u baahan adaa daciifa adaa faanis u baahan dadkii wax kaa dhigayay faaniska ahaa ku wacanayay laga yaabo gabartaas markay qabanqaabada sameynaysay inay dadkii koowaad ee ku wacay ahayd adigana xalayta aad ugu jawaabtay inaad gacan u qaadid marka damiirkii iyo aqligii intuu kaa aaday wax yar oo lagu dhahay naasa weyne haddii lagu dhahay maxay kaa dhibaysaa laga yaabo qofkan inuu xanaaqay xaraaradda ee qaadi uu kacay adiga inaad soo boodid maaha oo gacan aa qaadid teeda kaleeto qofka aa gacan u qaadaysa iyo qofka kaleeto waa la kala bartaa ta kaleeto maxaa la dhahay haweenka waa la dhowraa marka haweenka waa la dhowraa lagu leeyahay dhabankooda inaad feer ku dhufatid looguma talagelin inaad sharaftid inaad cisaysid ayaa lagugu talagalay marka ninka DJ Subeer xalayto si walbay ahaataba cimaamadaadi fataq dhulkay ku dhacday buraash xaar ahaad ismarisay wax lagaa qaban kara wallaahi oo maanta garanayo ma jirto anyway bini aadam wuu khaldamaa wax walbana wuu dhacaa marka waxaan ku leeyahay walaalkay DJ Subeer backgroundkan aad noo samaynaysid aasa Soomaali ahaan inaad naga bedeshid meel walbo aad tagtid aad nagu bahalkeenaysid aad naga dhaaftid sumcad daro sharaf daro gabdha la dagaal niman la dagaal la garanay niman la dagaal laakiin maxay tahay dumarka aad gacan u qaadaysa ama aad la ficiltamaysid ina adeero macaano isku xisho ayadana gabadhaasayta dhibki gaaray waxaa uga baryayaa ilaahay inuu ilaahay shaafiyo adigana khaladki kaa dhacay inaad inta isgarata nin weyn iska dhigto u tagto gabadhaas aad soo xal mariso sidee wax u dhaceenna bal waa kana ila yar daawada marka sidaas aad arkaysiin wax u dhaceen waxaan leeyahay walaalahayga qaaliga idinkana commentiga waxaa noogu soo dhiirigelin kartaan noogu soo dhiirigeliya ama ninkaas fariin aad u diri kartaan aad u direysaan subscribe-kana hanaga iloobina like iyo share-kana noogu dara wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala